waalidiin fara badan baa waxay leeyihiin sheekh labadeedan caruura kani waa fiican yahay, waa i dhegaystaa, wax walba waa iga yeelaa, kan waxba ma dhegaysto, waa xanaaq badan yahay, ima adeeco iyo wax la mid a. waalidiinta i weydiiya su-aalaha markaan eego waxay u badan yihiin waalidiin la dhaqmaya laba jiil oo kala duwan, laakiin raba inay ula dhaqmaan sida laba ilmood oo isku xigo hal sano kala weyn. ma aha. waalidiinta qaarkood markaan tusaalahaan u soo qaato, ilmaha ay ii sheegayaan ay ka cabanayaan waa ilmo da'doodu ay tahay inta u dhaxaysa 8 ilaa 10. ilmaha kalena waa ilmo da'doodu u dhaxaysa 16 ilaa 18. labadaa ilmood eed waalid ka hadlaysa ma og tahay laba jiil inay ka kala tirsan yihiin. jiil waxaa 95 ka dambeeya ee 2011 kusoo dhawaada Gen Z baa la yidhaha. waa jiil gooniya, waa jiil dabeecado gooniya leh, waa jiil sifaad gooniya leh, waa jiil qaab gooniya u soo koray, waa jiil la koray dhacdooyin kala duwan oo saameeyey qaabkay u fikiraan. jiilkan kale ilmahaaga aad leedahay ima maqlo, waxay dhasheen 2013 ama 14. waxay ka tirsan yihiin iyaguna jiil kaloo la yidhaahdo Gen Alpha. dabeecado gooniyay leeyihiin. in yar waxaan rabaa marka laba dabeecadood inaan kaaga sheego labadaa jiil, waalid si aad u garato dhibku meeshuu ka imanayo ama ay wax kaaga baxaan. waalid legis hadda kahor wuxuu ka hadlay jiilasha iyo sida loo kala qaybiyo. jiilasha dhashay 1900 ilaa 1927 magac baa loo yaqaan, waxaa la yidhahda the greatest generation. horaan usoo sheegnay. jiilka ku xigana waxaa la yidhahda the traditionalist ama the silent generation. waa jiil gooni ah. jiilka dagaalkii labaad ee adduunka kadib dhashay baby boomers baa la yidhaha. jiil baa ku xigay 69 ilaa 80 soo gaara Gen X. magac bay leeyihiin. innaga jiilasha ugu badan aqlabiyadda bulshadeenna waa 3 jiil. waa millennials oo 80 ama bilowgii 80 dhashay, iyo Gen Z oo iyagu markaa dhashay 97 95 waa la yidhaha, iyo jiilkan u dambeeya la yidhaha Gen Alpha. waxaan rabaa inaan ku idhaa caruurtaada midna jiilka Gen Z buu ka tirsan yahay. markay xanaaqaan ama ay yaraayeen afka pacifier baad u gelin jirtay, way aamusi jireen. laakiin jiilkan kale Gen Alpha la yidhaha pacifier ma yaqaanaan. dhabta waxaa loo saaraa iPad ama teleefonkaaga loo dhiibaa. u fiirso, waa jiil la koriya waxay taataabtaan visual. waa jiilan hadal badnayn. maantoo dhan iPadkaasa dhabta u saaran, waayo jiilkani waxay isku sanad dhasheen iPadka iyo Instagramka. sidaa darteed magacooda kale waa the iPad generation. waxaa badan daawashadooda, waxaa badan taybgarayntooda, waxaa badan farahan ay ka ciyaarayaan. hadalkoodu waa yaryahay, laakiin Gen Z-gu hadalkoodu waa badnaa. sidaa darteed jiilkan Gen Alpha la yidhaahdo waxaad ku arkaysaa communication xumo, ma hadli karaan. maxay taasi keeni marka? emotional, horey u cadhoonayaan, caadifad, cadhadaa ku badan, anger issue. waa meesha cadhadu ka imanayso. haddaad ka qaaddo waxan way kula dagaalamayaan, hadalkaa ku yar. sidoo kale waxaa la yidhaha Gen Alpha marka laga hadlayo they don't respect authority. ma aha jiil yaqaana awood ka sarraysa iyo inay u hoggaansamaan. u fiirsa marka, seexa markaa tiraa dhib baa kaa qabsan. waxaanay daawadaan ee kayu markaad aragto inta badan waa cartoon. mar walba waalidkii disobedient ku ah. seexa marka la yidhaha maxaan u seexanayaa odhanaya, waxaan cun marka la yidhaha maxaan waxaan u cunayaa odhanaya. caruurta Gen Alpha ee yar waa kuwa waalid aad ka cabanayso, jiilkaasay ka tirsan yihiin. waa jiil marka sifooyinkaa leh. maxaan nidhi? kow, waa jiil la dhashay iPadka iyo waxan. mar walba dhabta waxaa u saaran iyagoo yar, waxaanay ka shaqaynayaan, taleefonkay kaa qaadayaan, geeman bay ku ciyaarayaan, hadalkoodu ma badna. taas maxaa keentay? communication xumo. cadhadoodaa badan marka. anger issue bay leeyihiin. anger issuega gooni baan uga hadalay, waana ku celin doonaa. laakiin waxaan rabaa waalid inaad adigu marka hore ogaato, intaadan oran kana khayr qaba ah iyo kana inkaar qaba ah. horta ogow laba jiil bay ka kala tirsan yihiin. jiil walbana waxbaa saameeyey. jiilka aan ka hadlayno waa jiilkan la yidhaahdo Gen Alpha. laakiin Gen Alpha si walboon u canaanano, waxaan rabaa inaad soo dhawayso, mas-uuliyaddana barto. sababta waa maxay? waa jiilka ugu lacag badnaan doona iyagoo yar marka loo eego jiilashii hore. waayo waxay la korayaan aragtidan ama farsamadan ChatGPT-ga iyo AI-ga ee hadda waxbarashadii la wareegtay, businesskii la wareegtay, maamulkii la wareegtay. waa xilligoodii. iyaga cid walba uga aqoon badan. iyagoo yar bay gelayaan. iyagoo yar bay waxay gelayaan hogaamin sare, leadershipka gelayaan.
iyagoo yar baa lacag fara badan ay gacantooda soo geli doontaa. waa saadaasha iyo predictionka la hayo say u socoto. waa jiilka ugu tirada badan, jiilasha kaloo dhan bay ka tira badan yihiin. already waa 2 bilyan iyo wax ka badan, welina way dhalanayaan. sidaa darteed u fiirsa macallimiinta qur-aanka waa jiilkay fahmi la-yihiin, waa jiilkay qur-aanka beri la-yihiin, waa jiil focuskoodu yaryahay, waa jiil gacantoodu ay badan tahay, waa jiil qaab kale u fikira. waalid waxaan u sheegayno ma aha caruurtu markay waalidka ku edab darooto inaan excuse ama cudurdaar u raadinayno, laakiin waxaan rabnaa hal tallaabo inaan dib u qaadno oon isweydiino maxaa Faysal oo dhashay 96kii iyo Faa'iiza oo dhalatay 2013kii dabeecadoodii maxaa kala bedelay? hooyii aabbaa wada dhalay, isku tarbiyaan siinay, waxaa kala bedelay adduunka ay korayaan, dhacdooyinka ku hareersan, waxaasoo dhan baa kala bedelay. sidaa darteed waxaan rabnaa waalid inaan dhahno Gen Alpha waa jiilkan yar, markaan la tacaalayno fadlan aan isku dayno inaan ula dhaqanno dad distractionkoodu badan yahay, la koraya xilli teknolojiyadan ay weji kala yeelatay, la koraya xilli aanay kala garanayn waxa saxda ah iyo waxa khaladka. waayo mararka qaarkood waynu garan karnaa AI-da iyo sawiradan iyo dadka la isdhexgelinayo waa dad runtii wakhtigaa la koraya, way ka duwan yihiin jiilashii hore. maanta marka waalid waxaan rabaa inaan kuu sheego caruurta intaadan kaana u ducayn oodan jeclaan kana aadan inkaarin oodan nicin, fahan jiilasha ay ka tirsan yihiin iyo jiilashaas dhacdooyinka ay la nool yihiin iyo say u saameynayaan. taasaa keentay ilmahan yar cadhadoodu inay badato, ilowshahoodu inuu bato, focuskoodu inuu yaryahay, distractionka iyo jejeesigu inuu ku bato, inay sensitive yihiin oo dad caadifadoodu ay badan tahay ay noqdaan, dad u baahan marka diinta la barayo qaab ka duwan jiilashii hore in loo koolkooliyo oo loo baro aayadaha iyo axaadiista qaab ay fahmayaan in loogu sheego. dhacdooyinkaasay la korayaan. waalid lagisa waxay laga codsan fadlan inaad muuqaaladan la sheergaraysaan waalidiinta kale, idinkuna aad rukumataan ood subscriptionna saartaan insha allahu tacaala, waalidiinta kalena aad la sheergaraysaan. jazaakum allahu khayran.